waxaa lagu jiraa kowda luuliyo oo ah maalin taariikhi ah lagana xusayo dhammaan dalka iyo dibadiisaba haddaba waxaasi aan caadi ahayn maanta casuumado kala duwan ay uga dhaceen bariga Sacuudi Arabiya ee magaaladiisa Dammam halka uu cafeteria Al-Hayaa uu casuumad u fidiyay ummadda Soomaaliyeed si ay u xusaan maalintan taariikhiga ah aan la hilmaami karin kasoo qaybgalayaasha xafladan oo isugu jiray Soomaaliya ajaaniba halkaas oo laga wada xusay maalintan taariikhiga si kastaba haatee casuumadan ayaa ka qayba xuska 53aad ee kowda luuliyo iyadoo ay ka socdaan meel kasta oo ay Soomaali joogtaba iyagoona Ilaahay ka wada bariyay in dalka Soomaaliya uu ku soo noqdo mid nabad iyo cadaalad ka jirto ka hadlay munaasabadan ama casuumadan hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sidatan أنا أخوكم محمد من جمهورية مصر العربية بهنئ إخواني الصوماليين بمناسبة عيد الاستقلال غدا إن شاء الله 1/7 بإذن الله. ونتمنى لإخواني الصوماليين اللي أنا بعتبر نفسي هنا في السعودية معاهم واحد منهم وإحنا كلنا شعوب واحدة مصر والصومال وأفريقيا والدول العربية كلها دولة واحدة بنبارك لهم إن شاء الله بعيد الاستقلال وإن شاء الله مزيد من الحرية ومزيد من التقدم للإخوة الصوماليين والعرب جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. قولوا لي sidee u aragtaa kowda luuliyo waa maalin farxad leh ee waddankeena xurmadu u helay kowda luuliyo farxadeeda ilaa nigarsiiy sanadkan waaqayb billahi luuliyo waa ku mahadsanay ciidaan ku naqsano marka xurmada qaadin waay sanadkan nasad ilaahay nabi salaamni jeelsay Soomaalidaas meel ka baabooytay ilaahay nabi salaam ku dorsay waana taageersan kowda luuliyo maalinta xurmada qaadin Soomaali hal walato may kala fadaasay sheegay Soomaali isbooyt walaalnag wala wada aad hiliyay ilaahay iska sheegay آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هبنتي waxaan halkan ku qalaad ugu jeedinay qisas maalinta xorriyadda Soomaaliyeed oo ah munaasabadii kowda luuliyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin caalamka waxaan leenahay nabad waara kulligiin waxaan rajaynaynaa in aan ka shaqeyno meel walba aan joogno magaca Soomaaliyeed sidii uu ugu soo laaban lahaa haybadii iyo shacbiyadii iyo maamuuskii uu lahaa inaan ka shaqeyno sidii uu ugu soo laaban lahaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Al-Khabar ee ah bariga dalka Sacuudiga waxaan ku midaysanahay in Soomaalidu maanta ay u dabaaldegayso munaasabadda kowda luuliyo iyagoo mid ah waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku rajaynaynaa inay noqoto tii ugu dambeysay ee ka hadasha ama isu keenta oo halkeeda ka sii wada midnimada ummadda Soomaaliyeed. حول عقار الرويال تي في دمام.